Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Kaba Online Academy oo ka baran doontaan cilmiga ICT-ga. Waxaynu halkii kasii wadi doonaa cashirkeena web development-ga oo aynu ku baranay. Waxay noo joogtay inagoo dhisnay qaybta ugu sareysa heerka website-keeni ee website-ka ku raacanay isagoo noocan ah. Waxaynu ugu horeysiinay qaybta ugu sareysa ee heerka. Insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaynu sameyno maanta qaybtan oo ah inaynu soo gelino logo, inaan kale sameyno inaynu menu sameyno kale qaybta menu-ga. Waxa ugu horeysa ee laga doonayo waxa weeye inaad logo soo qaadato. Logodu waa inay noqotaa wax doontaa noqoto, laakiin waa inaad taqaanaa extension-keeda. Tusaalaha waxaa ugu muhiimsan magac kow iyo halkaas oo extension ku qorantay waa png. Okay, kadibna waxaan tegi doonaa qayb maxay sublime-keeni in ku qoranay. Waxaynu iman doonaa halkan dhiftii u dambeysay. halkaasaan dhif cusub ka furi doonaa. Waxaynu bixin doonaa dhif aynu oran doonaa. kadibna class baynu u bixin doonaa. class baynu sameyn doonaa. classka waxaynu bixin doonaa menu. marka ugu horeysa waxaynu soo gelin doonaa logada waxa marka la soo gelin waxa la yiraahdaa image oo ah sawir iyo soo geli halkaas source ay ku qorantay. waxaad ku qortaa magaca logada iyo extension-keeda. waxa ku qoran cross magaceedu waxa weeyaan cross tusaale ahaan dot baan raacaya png. kadibna save in orana save kare. okay, logada way soo gashay. okay, waxa kale oo sameeynaa qaybta labaad oo ah menu-ga. waxa ugu horeeya baynu furana oo ah anchor, kadibna hashtag, kadibna intaasina koobiyeysanana copy baynu ka sameysanaa dhowr copy si ay noogu fudaato 1 2 3 4. okay, ka ugu horeysa waxaan ku qoranaa web design. ka labaad waxaan ku qoranaa program. ka saddexaad waxaan ku qoranaa multimedia kale multimedia. ka afraadna waxaan ku qoranaa tusaale ahaan graphic design. ka u dambeeyana waxaan ku qoranaa home. tusaale ahaan home oo halkii ugu soo horeysay page-keena qaybta ugu horeysa. intaan noo save kale ay naga soo baxday. kadibna CSS-ka waynu gudbanaa bartaa ugu sareysa tagnaa. waxaan ugu yeernaa ugu horeysa menu. okay, menu-ga background-kiisa waxaan sameynaa menu background-kiisa ugu horeeya sameynaa background color. waxaan ku dhiganaa hash 2425853 oo ah background color-ka. width-kiisa waxaan ku dhiganaa 100%. line height waxaan sameynaa kale line height-ka waxaan ku dhiganaa 60 pixel. okay, float waxaan oranaa float right. okay, waxa kale oo yeeranaa menu image-ka says u sameyn doona image-kiisa waxaan ka dhiganaa float waxaan waxaad iga soo muuqataa left qaybta bidix. kow horta waa ka height-kiisa waxaan ka dhiganaa 80 pixel. width-kiisa waxaan ka dhiganaa intaan leg oo ah way isleeyihiin sababtoo ah waa goobo. okay, waxa kale oo sameynaa margin left 60 pixel oo ah bidix iga soo durug 60 pixel. okay, save in orana kadibna refresh orana. okay,
lixdan ayuu kusoo durkay waxa weeyaan 80 iyo 80 heightkiisu 80 widthkuna waa 80. okay leftna wuu nooga soo muuqday. okay waxa kalena u sameynaynaa SCSS qaybta menuga oo ah menu waa dot menu eediisa waxaa ugu horeysana waxaan sameynaa text decoration none. text decoration waxa weeyaan leadka yar hoos marsan ay ka qaad weeyaan text decoration. okay taas tirana text decoration waa none. colorkiisu colorkan waxaan ku dhiganaa hash bd ec b. colorka waxaan ku dhiganaa hash bd be cb. colorka noocaas aan ku dhiganaa oo yar cadaan ah. font family waxaan ku dhiganaa century. padding sameynaa waxaan ku dhiganaa 5 to 10 to 10 5 pixel 5 pixel to 10 pixel. float waxay noo soo baxdaa right. intaasaan soo afkaranaa. okay waxyaalaha soo inoo xakameeya text decoration waan ku dhignay none line hoostiisa colorka white nooga dhig font family ama farta nooceeda paddingka intii isku jirayaan iyo float right oo ah bidix nooga soo bax. okay intaas soo afkaranaa. okay waxaanu yiri waaweyn farta halkaasaan ku dhignaa font size waxaan ku dhiganaa tusaale ahaan 22 pixel. fartana waanu yara waaweynaysananaa. very simple waa intaas. waxaan intaa kusoo koobi doonaa casharkeena maanta kan casharkan iyo casharka xiga insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.